بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu afar tahay bisha May 2020 waxaan magaalada Qardho ku qabanaynaa sidii ballanta noo ahayd bishiiba mar isbuuca ugu horeeya maalinteeda Isniinta inaan qabanno warbixin ku saabsan xaaladda Puntland iyo dalka guud ahaan u marayo si aan ula wadaagno bulshada reer Puntland meelaha wax joogaan waxaan marka ugu horeysa mujtamaca muslimiinta Soomaaliyeed guud ahaan u rajeynaya Ilaahay idankiis in uu bisha Ramadaan oo tobankii dhexe oo maqfirada ahaa la galay inuu Ilaahay dambi dhaaf uu siiyo dhibaatooyinkii dhacayna oo ka dulqaado mustaqbalkana Ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inuu Ramadaankiisa kaleetana uu ku gaarsiiyo wanaag raxmadda iyo maqfirada iyo ka korinta naartana ay dadka guud ahaan muslimiinta iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Ilaahay uu ka aqbalo marka xiga in kastoon hore ugu tacsiyeynay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii wax ku yeeloobay daadadkii ka dhacay magaalada Qardho oo runtii ay ku dhinteen dad badanna ay ku hanti waayeen dad badanna ay ku barakaceen sidoo kale waxaan rabaa inaan halka tacsi uga diro dadkii ay biriqda ku dishay dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan agagaarka Dhuusamareeb sida warbixinta aan ku helay waxaan iyadana qoysaskii iyo heladii ay ka dhinteen halka u marnay tacsi inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bedel khayr qaba uu siiyo sabir iyo iimaan uu ka siiyo sidoo kale fatahaadda iyo meelaha ay waxyeeleeyeen deegaanadaas waxaan iyadana ka rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in iyadana gurmad iyo gargaar ay u fidiyaan si ay noqoto mujtamaca Soomaaliyeed dad isku tiirsan oo isku kalsoon sidoo kale magaalada Baardheer waxa ka dhacay fatahaado in kastoon maqal dhimasho laakiin dhaawac badan ayay wixii gaarsiisay dalagyadii ay beeran jireen iyo hantidii iyo guryihii iyadana waxaan u rajeynayaa Ilaahay idinkiisa inuu dhibka ka dulqaado iyadana dadka Soomaaliyeed ay gargaar ay u gudbiyaan sidoo kale koonfur galbeed sida wasiirkooda gaadiidka uu maanta cadeeyay diyaaradii ku dhacday Bardaale oo dad ay ku dhinteen burburkaas waxaan Ilaahay uga rajeynayaa in uu intii ku dhimatay oo aan filayo magacadooda marka arkay inay xoogooda dad muslimiin ay ahaayeen in Ilaahay uu naxariisto mil Ramadaan iyagoo ku dhintay mulkiilayaashii iyo hantida dadka lahaa oo ay ka burburteen cawad khayr qaba Ilaahay siiyo waxaan rajeynayaa baaritaankeeda iyo ka hor dhici maayo oo dowladda koonfur galbeed ayaa laga sugayaa sababaha ay u dhacday laakiin waxaan u rajeynayaa in uga tacsiyeynaya khasaaraha dhacay oo ku dhacay deegaanadaas intaas markii aan ka gudbo sidoo kaleeto guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee maalmihii u dambeeyay ku naf waayay xanuunada la malaynayo inay dalka Soomaaliya ay ku jiraan oo COVID-19 iyo kuwa la mid ah waliba gaar ahaan magaalada Muqdisho oo sida ay warbixinada iyo warbaahintu ay sheegayaan dhimashadu aad ugu kacday waxaan iyadana Ilaahay uga baryayaa dadkaas geeriyooday inuu naxariistii janno u siiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen oo samir iyo iimaan ka siiyo waxaan sidoo kaleeto mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyadana anoo gadaal ka faahfaahin doona ku baraarujinaya xanuunkan dilaaga ah oo cadawga ah in sida hadda loo wajahayo si ka ballaaran in loo wajaho oo khatartiisa la wada dareemo inay muhiim tahay oo dadku ay ka taxadaraan dhibaatooyinka uu la imaanayo sida aad ogtihiin muddadii bishii hadda u dambeysay dowladda Puntland waxyaabo badan ayaa u qabsoomay caqabado badanna waa ay hor yimaadeen waxaan rabaa inaan kala hormariyo sida aad ogtihiin dhacdadii u weynayd ku dhacday deegaanada Puntland marxaladan waxay ahayd dhacdadii ka dhacday magaalada Qardho aan hadda weli ku sugannahay gurmadkii aan ugu nimid oo ahayd dhacna aad u xanuun badan oo horay uga dhicin deegaanada runtii 28kii bishii la soo dhaafay ayaa waxa ku dhuftay roobab mihigaan ah oo watay daadad aad u fara badan oo ku soo rugmaday magaalada saameeyay dhimasho 8 qof ah saameeyay 8,000 oo qoys
barakaciyey 3,540 ka mid ah inta kaleetana si gaargaar ah oo kala ladifanayo guryahooda qayba ka dumeen u saameeyey ama biyaha ay aada u galeen waxaa ku burburay 750 guri waxaa baaba'ay oo dhibaato weyn gaartay 1,020 oo ganacsiga deegaanka oo ahaa suuqii ugu muhiimsanaa oo dhaqaalaha iyo halbowlaha u ahaa Puntland ilaa iyo hadda gurmad ayaa la fidiyey waxaa la soo gabagabeeyey warbixintii hordhac ahayd riboodka ahayd ee lagu xaqiijinayay khasaaraha inta uu la egyahay iyadoo aan la wadaagnay dhammaan dadkii ay khusaysay waxaa ilaa iyo hadda gargaar la gaarsiiyey bini'aadanimo oo raashin iyo agab kaleeto isugu jira oo ah gogol iyo maacuun iyo wixii la mid ah 6,002 qoys inta kalena waxaa ku socda gargaarka loo wado waxaa dhammaan deegaanada Puntland iyo kuwa Soomaaliya iyo dibaddaba ee qardho ka soo gaaray gargaar isugu jira lacago isugu jira raashin isugu jira agab kaleeto dhammaan magaalooyinka Puntland degmooyinkeeda degmo aan wax ka imaan waa ay yartahay waaciya carmo boosaaso dhahar buraan buurtinle gaalkacyo garowe xarfo galdogob iyo in kale oo fara badan oo runtii dhahar meel aynan wax ka imaan oo runtii gargaarkaas aysan soo gaarsin oo isugu jirta lacag raashin dhar iyo dadkaas waxyeeloobay siday ugu gurman lahaayeen dowladda Puntland anigu u horeeyo iyo dhammaan wasiirada ugu muhiimsan dowladda oo dhan muddo isbuuc ku dhow ama ka badan ba halkaan fadhinay iyadoo si rasmi ugu kala jiray gudiyada kala duwan ee afarta ee la qabtay waxa ay dowladdu muujisay dadaal dheeraad ah dowladda federaalka oo iyaduna qayb ka ahayd waxaan uga mahadcelinaynaa qoondadii gargaarka ahayd ay soo gaarsiisay magaalada qardho iyo guud ahaan Puntland sidoo kaleeto wufuudii ka soo qayb gashay inay soo booqdaan oo ka socda dowladda federaalka iyo iyagana uga mahadcelinaynaa waxaa sidoo kaleeto gargaar ka geystay dhammaan hay-adaha caalamiga ah oo runtii isugu jira kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn kuwa local NGO-ga ah runtii waan uga mahadcelinaynaa gargaarka waafiga ah ee hay-adahaas wada keeneen hay-adaha UN-ka OCHA UNHCR WFP WHO iyo cid walba si khaas waxaan ugu mahadcelinaynaa Save the Children oo runtii gargaar iyo gurmadka farsamadii iyo ka qayb qaadatay dhammaan howlihii socday waxaa sidoo kaleeto runtii iyadana xusid mudan foundationka King Salman oo runtii isagana soo gaarsiiyey 3,000 oo qoys oo ah runtii raashin iyo agab kale isugu jira sidoo kaleeto hay-ado kale oo badan oo kuwa dawli ah iyo kuwa aan dawli ahayn iyo kuwa aan halka kusoo koobin laakiin maalin walba ay sheegaan gudiyadu mid walba iyo waxay keentay waxaa sidoo kale barbar socday ururada siyaasiga ah ee ka jira Puntland oo iyagana muujiyay runtii mas'uuliyad ay tahay sida ururadu ay u jiraan oo saxda ah danta guud ee dalka iyo dadka dhammaan muxaafid iyo mucaaradba waa ay wadaagaan markii disaasteradan oo dhacaana waxay ahayd iyagoo weli xisbi rasmi noqon iyagoo weli aysan noqon xisbiyada rasmiga oo dalka u leh awoodda shaqo ayay haddana waxay muujiyeen khaasatan labada urur mideeye iyo ururka kaleeto oo cadaaladda iyo sinaanta inuu hawaan filaya labadaas urur runtii waxay muujiyeen ka qaybgal waafi ah waxaan rajaynaynaa dhammaan dadka kaleeto inay ka qayb galaan waxaa sidoo kaleeto barbar socotay dadka runtii isimada waxgaradka dhammaan dadka reer Puntland oo runtii uga qayb qaatay si toos iyo si dadbanba waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dibadaha jira tan Puntland iyo tan kale ee Soomaaliyeedba labaduba waxay ka wada qayb qaateen tabaruci maxaa yeelay jaaliyadaha meeshaas wada degan uma kala socnayn Puntland iyo Soomaalida inteeda kale si midaysan ayay uga wada qayb qaateen marka waxaan oran karnaa jaaliyadaha Canada Ingiriiska Mareykanka Australia Norway Sweden Denmark waxay inta hadda aan maqlay inay wax ka soo gaargaareen guddiga iyo in kale oo fara badan oo faahfaahintooda iyagu sheegi doonaan
intaba waxaan uga mahad celinaynaa runtii garab istaaga iyo sida ay maaragtay magaalada Qardho ugu soo gurmadeen runtii waxaa socda daraasado isugu jira sidii mar dambe aysan ugu dhici lahayn Puntland arrintan oo kaleeto sidii loo soo celin lahaa nolosha ganacsatadii uu ka burburay iyo sidii dadkii waxyeelada tooska u gaaray iyagana wax looga qaban lahaa intaba dadaal badan baa ka socda faahfaahinteeda gudiyada ayaa sheega waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan oo qurux badan ay ku socdaan kuna soo dhammaan doonaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan gudiyadii ay ugu horeeyaan dawladda dhexe heer gobol heer degmo iyo dhammaan deegaanada iyo mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka kale ee Puntland iyagana isku xilqaamay inay deegaanadaas macaawinada ka timid iyaga ay hormuud u ahaayeen intaas oo dhan waxaan uga mahad celinayaa runtii dadaalkaas oo muujiyay midnimada iyo wadajirka iyo in dadka reer Puntland guud ahaan ay noqdaan dad mar walba isku tiiriyo waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa magaalada Beledweyne oo runtii gurmad muuqata oo runtii moral ah la soo gaaray madaxweynaheeda iyo iyagaba si gaar ah ayaan uga mahad celinayaa oo madaxweynaha Hirshabelle oo isaguna runtii abiil uga diray hawada bulshada reer Hirshabelle runtii kaalinta weyn ay ka gaasteen sidoo kale ganacsatada reer Muqdisho rugta ganacsiga iyo ganacsatada kale iyaguna dadaal weyn ka bixiyay culumada meel kasta ay joogaan oo runtii iyagana ku booriyay in dadka Soomaaliyeed ay isgargaar isu fidiyaan intaas oo dhanba waxay ahayd waxyaabo weyn oo la taaban karo oo Ilaahay mahadiisa dawladda Puntland khataraha weyn oo hadda wajahay waxa kamid ah infrastructure-kii oo halis galay oo ugu horeyso magaalooyinka iyo jidka dheer ee isku xiray Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso iyo Laascaanood runtii waxaa dhamaaday daraasadii waxaan rajaynaynaa in shaqo dhameystiran ay ka bilaaban doonto waxaa si hordhaca u bilowday meelihii ugu khatarsanaa buuraha Yelho oo dadku u yaqaanaan meermeerka waxaa ka socota shaqo 3 kiiloomitir ugu horeysay ugu khatarsan iyo in la baneeyo meelaha la sii mari karo muddadaas muddadii hadda bisha ahayd waxaa go'ay 2 buundo oo dhinaca Boosaaso xiga waxaa si degdeg ah maamulka degmada iyo gobolka iyo dhammaan ciidamadu ay uga qabteen in aanan kala socodka gaadiidku uusan hakad gelin oo ay hawshii ay si ku meel gaar u sii socoto waxaan uga mahad celinayaa guddiga Ceel Daahir wadadiisa oo haddana gacanta ku haya wadadaas halbowlaha ah siday u furi lahayd shaqaduna meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynayaa in ay meeshaas khatarta badnayd mar dhow ay noqon doonto meel aan laga warwalin inta kale oo go'aanna waxaan rajaynayaa waqtiga ku habboon iyo sida hadda awoodda loogu helo inay u fuli doonaan runtii waxaa jira xanuunka COVID-19 oo Soomaaliya aad ugu sii fidayo sidaan hore u sii sheegay guud ahaanna ku soo badanaya Puntland 3 maalmood oo u dambeysay waxaa la sameeyay baaritaano runtii na gelinaya walwal baaritaankii ugu horeeyay oo 20 ka ahaa waxaa laga helay 12 qof baaritaankii xigay waxaa laga helay 8 qof baaritaankii hadda u dambeeyay runtii waxyaabaha walwalka badan geliyay dadka waxaa kamid ah in dhammaan deegaanada Puntland oo dhan laga helay waxaa laga helay Garowe waxaa laga helay Qardho oo maanta 2 kiis laga helay waxaa laga helay Waaci oo 3 kiis waxaa laga helay 3 kiis oo Boosaaso ah meelaha kale tana baaritaanku markuu gaaro waxay u badan tahay in dad badan oo positive laga helo waxaa la soo sheegayaa magaalooyinka inay dad aad u qufacay joogaan dad xumadaysan joogaan dad urti iyo dhadhankii ay ka tagtay ay joogaan dadkuna runtii aysan wax daryeel iyo taxadar aysan sameeyeen xanuunkii bay waxay kula soo noqonayaan guryihii xaasaskoodii caruurtoodii ehelkoodii ugu dhawaa runtii arrintaas waa arrin khatarteeda leh qofkii la rabay inuu ummadda badbaadiyo haddii isaga dadkii dad u xigay uu rabo inuu galaafto oo uu qarsado oo uu ka dhigo inaan waxba haynin khatarteeda qofkii wax yar isku arka waxa la rabaa bulshada inuu iska sooco oo ugu horeyso caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dadkii ehelka ugu dhow arrintaas runtii waa arrin aad khatar u leh oo keeni karta
dad badan oo ehel ah oo meel wada jooga inay baaba'aan waana masiibo aada u weyn waxaan aada ugu digaynaa bulshada inay ilaaliyaan waxyaabaha la farayo ay ugu muhiimsan tahay inay kala fogaadaan inay afka xirtaan inay gacmaha iska dhaqaan inay meelaha laisugu soo ururaayo ay yareeyaan waxaan runtii khatar weyn ah inkastoo markuu dhib yimaado mararka qaarkood khataraha la ilaawo laakiin khatarta aan badbaadinayno mid ka weyn inaan ku dhacno iyaduna waxay keenaysaa garasho xumo in magaalada qardho dadkeedu aad moodid inaysan xanuunka uu soo gaarin waxaa la caddeeyey labadii qof oo u horreeyey in maanta laga helay waxaa wararkan ugu soo gaaraya dad aada u fara badan oo jiran inay guryaha jiifaan arrintaas waxaan uga digaynaa bulshada meel kasta ay joogto inay ku baraarugaan waxaan faraynaa ciidamada inay ilaaliyaan nidaamkii kala fogaanshaha iyo in isku ururka inay ilaaliyaan bandowgii in la xoojiyo iyadoo aanan xadgudub lagu samaynayn bulshada iyada oo la ilaalinayo waxyaabaha masaalixda caamka ah iyo wixii aan laga fursan karin waxaan rajaynayaa inta shaqo darteed uga fursan weyda in ay shaqeeyaan waxaa la rabaa inay fuliyaan in ay dadka iska ilaaliyaan iyaguna is ilaaliyaan arrintaas aaday muhiim u tahay caabuqa dhammaan wuxuu geystay dhaqaale xumo dakhligii dowladda hoos u dhacay kii bulshada hoos u yaraaday arrimahaas adduun weynaha ayaan la qabnaa laakiin si gaar ah awalba dhaqaalaha noogu yiqsanaa ayaa dhibaato soo gaartay runtii bulshada reer puntland waxaa u da-ay roobab aada u fara badan oo lagu diirsaday dhulka intiisa badan waa barwaaqo dadka intiisa badan niyadda way fiican tahay dhaqaalihii ku xirnaa badeecadaha iyo ganacsiga iyo kala gooshka dhaawac baa soo gaaray sidoo kaleeto waxaa fursad ay u heshay dekedda boosaaso iyo deegaanada ku xeeran dhoofinta xooluhu inay fiican yihiin oo suuqyo fara badan oo aan hore loo tegi jirin la aado arrintaas waxay muujinaysaa in ilaahay uu meel kale faraj uga furay waxaan aada ugu rajo weynahay inay dadweynuhu ilaaliyaan sidii ay isaga ilaalinayaan xanuunkaas iyo saameynta uu yeelan karo dabcan daadadku iyo xanuunadu markay isbiirsadaan khatar aada u weyn weeye waxay wiiqeen dhammaan wax walba oo bulshadu ay haysatay dabcan tacliinta waxyaabaha saameynta ay ku yeelato weeye puntland waxay aada ugu dadaashay in ardada reer puntland inkastoo iskuulaadkii laga xiray khaasatan ardada fasalka 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare in aysan imtixaankii shahaadiga ah ay u fariisan doonaan inay duruustii ka kala go-een waxa ay puntland samaysay online casharo ah oo laga soo bandhigayo telefishinada iyo social mediaha iyo ardadana loo diri karo whatsappyadooda si ay ula socdaan casharada runtii arrintaas waxay noqotay tijaabo aada loogu najaxay intii dhiganaysay iskuuladana ay ka faa'idaysteen dad kaloo fara badan oo ama duruusta waa hore ugu dambeysay ama kuwa sanadada dambe soo socda geli doonaan iyaguna ay ka faa'idaysteen runtii waxay noqotay hab qayb ka noqon doonta tacliimeynta iyo wacyigelinta dhinaca tacliinta bulshada waxayna noqon doontaa arrin lagu najaxay oo lasii wadi doono in duruustu ay ka socoto social mediaha iyo waxyaabaha lamid ah si aqoonta bulshada kor loogu qaado markii aqoonta bulshadu ay kor u kacdo ayaa waxaa hagaagaya caafimaadka ayaa waxaa hagaagaya amniga ayaa waxaa hagaagaya nolosha iyo dhaqaalahaba waxyaabo badan oo hadda dadku ay samaynayaan oo amni darro ah oo caafimaad xumo ah oo deganaanshaha la-aanta ka qayb qaadanaya oo degaanka xumaynaya oo dhulalka biyaha ay dhisanayaan oo dhirtii ay jarayaan waxyaabahaas waxaa saameyn ku leh wacyiga iyo aqoonta iyo thaqaafadu aada u haysayso marka waxaan rajaynaynaa in bulshada guud ahaan aqoontooda kor loo qaado puntland muddadii u dambeysay waxay xoogga saaraysay isbeddel inay ku samayso dhinaca amniga runtii waxaa aada loo xil la isaga saaray oo dowladda laamaheeda amniga oo guud siday u wada shaqayn lahaayeen sidii loo samayn lahaa qorshe midaysan oo amni oo laamaha amniga ee kala duwan ay ka wada qayb qaadanayaan booliiska daraawiishta nabad sugidda iyo hay-adaha kaleeta ee gaarka ah u tababaran sida la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay ilaalinta xeebaha ciidamadaas oo dhan ayaa ka wada qayb qaatay waxaa xoogga la saaray magaalada boosaaso garoowe iyo gaalkacyo oo runtii iyo magaalada qardho waxaa la sameeyey isbeddel ku saabsan dhinaca taliyayaasha qaybaha oo deegaanada qaarkood la isku bedelay waxaa isbeddel lagu sameeyey taliyihii booliiska waxaan rajaynayaa
howlgallada hadda socda oo runtii intooda badan lagu soo qabtay dad badan oo faldambiyeed ku jira khaasatan ururada argagixisada shabakado badan oo khatar ku ah bulshada oo lasoo qabtay waxaan rajaynaynaa qorshaha amni ee hadda socda ee hirgalay oo runtii aan rajaynayno inuu taabo qaaday hirgelintiisuna ay dhammaystirmi doonto inay qayb ka noqon doonta deganaanshaha waxaa puntland runtii ay ku guulaysatay inay ciidamada puntland tababarkooda ay hagaajiso ay maaragtay furimihii muddada dheer ciidamadii joogay tababar lagu celiyo kuwa cusub la geeyo foojignaanta la badiyo waxay iyadoo og bisha ramadaan inay dhagarqabayaashu ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan amniga waxaa socda howlo loogu talagalay in amniga lagu sugo ciidamaduna ay ku foojigan yihiin bulshadana ay kula shaqeynayaan waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay noqon doonto arrin miro dhasha waxaa sidoo kaleeto runtii ka tacsiyeynaynaa halkana uga direynaa baaq degaanada xuduudda ah ee puntland iyo galmudug shaqaaqadii ka dhacday habeen hore runtii magaalada teerage weerarka dadka aan la garanayn ay kusoo qaadeen arrintaas runtii waxaan ka rajaynaynaa dadka degaanka labada dhinacba degan inay si qoto dheer u eegaan dadka faldambiyeedka sameynaya oo raba inay bulshada walaalaha ay meeshooda degan iska hor keenaan inay xaalado dagaal abuuraan bisha ramadaan waa falalkii iyo farsamadii dadka xag jirka ay samayn jireen oo aan rajaynayno in hadda laga bislaaday oo laga digtoon yahay waxaan rajaynaynaa runtii maamulka puntland iyo magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug iyo dhinaca kaleeta mudug dhinaca galmudug waxaa ka dhexeeya wada shaqayn guddoomiyaasha labada dhinac iyo degmooyinka runtii arrimahaas waxaa laga gaaray horumar fiican waxaan rajaynaynaa amniga inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed ay ka wada shaqayso waxaa keliya cadowga keliya ee leenahay waa cadowga xag jirka ah ee raba inuu deganaanshaha iyo nolosha ummadda u diido runtii usbuucan waxaan diiradda saareynaa oo kusoo koobaynaa warbixinaheena fatahaadaha iyo xanuunka covid-19 iyo amniga gudaha waxaan rajaynaynaa isbedello waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah maadaama dad fara badan oo soomaaliya dhibaato ay la kulmeen oo aan dhex joogno magaaladii mashaqada iyo dhibaatadu ka dhacday waxaan jecelnahay inaan xoogga saarno oo gurmadskoodooda iyo kusoo jeedinta bulshada in ay ummaddan iska halmayso dowladda runtii waxay wadaa qorshe dheer oo ballaaran oo dib loogu celinayo dadkii barakacay oo ugu horeeyaan dadkii ganacsan jiray runtii dadaalkaas guddiyada ayaa faahfaahiya bulshada reer puntland iyo bulshada caalamka ee soomaalida jirtana way ka dharagsan yihiin wayna la socdaan laakiin waxaan ugu baaqaynaa inay dadaalkii ay wadeen ay sii wadaan gurmadka halkiisa laga sii wado waxaan aada sidoo kale ugu mahad celinaynaa dareenka wanaagsan ay sameeyeen dadka soomaaliya iyo dadka reer puntland meel kasta ay joogaan waxaan maanta kusoo gaabsanaynaa kulankeenii maalinta isniinta ah qodobadaas aan rajaynayo inay yihiin qodobadii ugu mudnaa oo ay ku habbooneed inaan maanta ka hadalno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu